السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العشرة soo socda waxaynu ku baran doonaa luqadda programming-ka ee loo yaqaan PHP taasoo aynu ku baran doono bilow ilaa dhamaad. waxyaalaha aynu ku baran doona casharadan waxaa kamid ah aasaaska salka ee PHP programming. halkan sida iiga muuqata dhinacan bidixda waxa ku qoran af Soomaali, dhinaca midigta waxa ku qoran af Ingiriis. kan labadaba qofkii maaragtay qof walba waxa uu u sahlan inuu maaragtay isticmaalo ayaan ugu talagalay. marka hadii fikrad ay haystaan maaragtay in Soomaali kaliya loo qoran waa soo gudbin kartaan. waxyaalaha aynu ku baran doono waa aasaaska salka ee PHP programming. waxaanu ku baran doonaa casharadan sida loo install gareeyo PHP 7, Apache and MySQL. waxaan kaloo baran doonaa fahamka PHP variables, loops, conditional iyo functions kaasoo ah programming syntax loo isticmaalo maaragtay si information loo process gareeyo. waxaan kaloo baran doonaa sida loo process gareeyo foomamka bogga internetka adigoo isticmaalaya contact page. haddii qof rabo maaragtay inuu information soo diro website-kaaga sida information aan uga soo qaadi karno aan ugu soo gudbin karno maaragtay ama inaan ku kaydino database-ka ama aan u dirno email qofkaas maaragtay si aan macluumaadkaas uga jawaab. waxaa kaloo halkan ku baran doonaa sida loo abuuro loona isticmaalo database-ka. waxaynu kaloo ku baran doonaa casharadan abuurista mashruucyo sida contact forms, sida loo process gareeyo contact formska sidii hadda wax yar ka hor aan idin sheegay. waxaan kaloo abuuri doonaa systemka loo yaqaan user login system oo ah sida loo abuuro website qofku uu geli karo oo member uga noqon karo si loo process gareeyo informationkaas. intayna arrimahaas uga galin waxaa muhiim ah inaan isweydiino waa maxay PHP. PHP-gu waxay u taagan tahay Hypertext Preprocessor. markii ugu horeysay uu soo baxay ereygan PHP wuxuu u taagnaa personal homepage, laakiin waxaa hadda la isku raacay in loo soo gaabiyo ereyga PHP kaasoo u taagan Hypertext Preprocessor language. PHP-gu sida luqadaha kale oo dhan maaragtay sida Python ama Java or any other language waxaa loo yaqaanaa server side scripting oo ah technology loo adeegsado daabicista bogagga internetka taasoo khaas u ah qof kasta oo bogaggaas internetka meel kasta ka soo gala isagoo isticmaalaya browserka. waxaan loo yaqaanaa browserka oo sida Google Chrome, Internet Explorer iyo Firefox iyo Safari. PHP waxaa soo saaray nin engineer oo magaciisa la yiraahdo Rasmus Ledel wuxuuna soo saaray sanadkii 1994. so waa maxay PHP? PHP waa luqad programming ah oo la dhexgelin karo bogagga HTML-yada iyadoo la isticmaalayo PHP syntax ama syntax-kan PHP-ga hoos ku qoran kaasoo ah kuwa ku qoran calaamadaha yellow-ga ah oo ka bilaabata maaragtay calaamad su'aalka. haddii maanta aan soo qaadano HTML page aan syntax-kan aan dhex dhigno ereyga hoos meesha ku qoran sida hello cabdi ayaan ka akhrin karnaa haddii loo baahdo. faylasha PHP marka la rabo in la abuuro ama la rabo in la kaydiyo waxaa lagu save gareeyaa extensionka loo yaqaano .php. sidee buu u shaqeeyaa PHP-ga? sida PHP-ga halkan ka muuqata qofka userka wuxuu gacanta ku hayaa telefoonkiisa isagoo raba inuu maaragtay address wax ku type gareeyo isagoo isticmaalaya aaladahan browserka loo yaqaano oo sida Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari haddii aad Mac user tahay. informationkaas dan waxaa loo gudbinayaa serverka. marka serverku informationka ku kaydsan yahay toolka anaga aan isticmaalayna inaan serverka maaragtay aan la xaajoono oo macluumaadkaas ula soo baxno waxaan loo yaqaano PHP programming oo aynu doonayno hadda inaan barano kaasoo inoo suurtagelinaya inaan informationada ku save garaysan database-ka ama file systemka oo serverku leeyahay inaan kala soo baxno. marka masawirkan wuxuu ku tusayaa waxaan teknolojiyada dadka ay u yaqaanaan user interaction sida qofku u interact garanayo internetka. marka sida ay maaragtay information ku socdaa marka
ujeedada anagu halkan waxaan soo kana usoo galnay wuxuu yahay inaan maaragtay aan PHP ga meesha uu ka soo galayo macnaha interactionkan aanu ogaano ayay tahay. waa maxay isticmaalka faa'iidada ay leedahay barashada PHP? sida halkan ku cad, PHP gu waa luqad aad u sahlan si loo barto. PHP gu waa teknolojiyo lacag la'aan ah oo u furan qof kasta inuu ballaariyo ama wax ku daro, ama waxaan ay u yaqaanaan open source technology. wuxuu leeyahay caawinaad fara badan oo dad badan ay ka caawini karaan. PHP gu waa teknolojiyo lagu isticmaali karo platformyada sida Windows, Linux iyo Ubuntu, oo ah servero loo isticmaalo in lagu process gareeyo programming language-yada. haddii aynu rabno inaan fahanno maaragtay faa'iidada isticmaalka PHP gu waxa uu ina siinayaa xornimo aan ku ballaarin karno haddii loo baahdo in wax lagu kordhiyo programma hore loo qoray ama maaragtay jiraba. sidoo kale PHP gu waa teknolojiyo leh frameworkyo kala duwan sida Laravel, Symfony iyo CodeIgniter oo kulligood ah teknolojiyo aan u isticmaali karno inaan ku abuurno website-yo ay macaamiisheena rabaan. PHP gu waxaa loo isticmaali karaa database-yo kala duwan sida MySQL ama PostgreSQL. macnaheedu wuxuu yahay PHP gu interaction ayuu la samayn karaa labadan database. waxaan kaloo isticmaali karnaa PHP. isticmaalka PHP wuxuu inoo suurtagelinayaa abuurista website-yo dynamic ah ama casri ah, waxaan u yaqaanaa dynamic website sida WordPress-ka. isticmaalka PHP wuxuu inoo suurtagelinayaa inaan macluumaad kala soo baxno faylasha ku jira serverada. isticmaalka PHP wuxuu kaloo inoo suurtagelinayaa inaan process garayno foomamka ay isticmaalayaashu noogu soo diraan bogagga internetka ama waxaan loo yaqaano web forms. waxaan kaloo isticmaali karnaa PHP gu inuu noo suurtageliyo inaan macluumaad ku darno, kala soo baxno ama aan tirtirno macluumaad ku kaydsan database-yada. isticmaalka PHP wuxuu inoo suurtagelinayaa inaan abuurno bogag dad khaasa ay geli karaan ama waxaan loo yaqaano user login system. isticmaalka PHP wuxuu kaloo inoo suurtagelinayaa inaan abuurno system badbaadinaya faylasha ama macluumaad dad khaasa loogu talagalay inay galaan, oo ah waxaan horaan u sheegnay user login system kaas oo kale. waxaan u isticmaali karnaa PHP ga inaan ku dhisi karno website sahlan ama basic websites. waxaan kaloo isticmaali karaa PHP ga inaan ku dhisno bogag internetka ee loo yaqaano blogs like sida WordPress oo kale. waa teknolojiyo isticmaasha PHP ga. isticmaalka PHP waxaan ku dhisi karnaa bogagga wax lagu kala iibsado ee loo yaqaano shopping websites. isticmaalka PHP ga waxaan ku dhisi karnaa bogagga dadka ay xiriir wada hadal ku samayn karaan ama waxaan loo yaqaano social media. waxaan kaloo isticmaali karnaa PHP inaan ku dhisno nidaamka maareynta mawduucyada ama waxaan loo yaqaano content management system. content management system WordPress macnihiisu WordPress-ka laftigiisu waa tusaale fiican oo content management system. WordPress-ku waa content management system, it has databases, it can store information. marka wuxuu noo saamaxayaa inaan ku maamulno mawduucyo kala duwan anagoo isticmaalayna. wuxuuna ku base garaysiyaa mar walba PHP. isticmaalka PHP gu waxaan ku dhisi karnaa bogagga internetka xubin laga noqon karo ama waxaan loo yaqaano membership websites. WordPress waa mid ka mid ah. isticmaalka PHP waxaan ku dhisi karnaa waxaan loo yaqaano API oo u taagan application programming interface system, kaasoo ku xirmaya website-yo kale ama social media si macluumaad looga soo qaato aad u isticmaali kartid website-kaaga. halkan wixii ka dambeeya waxaan isku dayaynaa maaragtay inaan bilaawno inaan qorno code-kii website-yadii. bal marka ugu horeysa casharka soo socda waxaan abuuraynaa sidii aan u install garayn lahayn maaragtay platformkan loo yaqaano aan rabno inaan code ku qorno loo yaqaano Stan. marka haddii ilahayd waxaan is arki doonaa casharka dambe. mahadsanid.